waan ku soo dhaweynayaa marka hore xildhibaan Daahir Amiin Jesow marka xigta xildhibaan adoo raali ah waxaan rabay inaan wax ka weydiiyo dhacday 2020kii oo la xiriirta dhagax la sheegay magaciisa Shiid Birood dabcan dadka halka degan ay ku sheegeen dhagaxa waxa la sheegay in dadka deegaanku aad adiga matashid laga soo qaaday ma aaminsan tahay xildhibaan in dhagaxaasi uu ahaa dhaxal dadka ay leeyihiin oo in la ilaaliyo ay ahayd intii loo qaadi lahaa dalka dibadiisa waa mahadsan tahay dhagaxaas waxaa dayacday dowladdii ka horeysay dhagaxa alcali laga soo qaaday niman shabaab ah ayaan ka soo gadanay ay yiraahdeen niman ganacsato ah oo weliba dadka deegaanka u dhashay dhagax aad u qaali u ahaa dhagax muxuu ahaa culayskiisu 15 tan ayuu yahay 15,000 oo kiilo waa 15 tan ayuu ahaa baabuura lagu keenay baabuurkiisii iyo wixiisoo dhan waa la qabtay annaga waa sheegnay in dhagaxda soo qaaday hay'adaha amniga way qabteen markii dambana waxaan maqalnay in laga dhoofiyay eelaboorka oo China loo dhoofiyay marka dowladdii ka hor ayaa arintaas tahay go'aadaysan waa tahay xildhibaan Daahir Amiin Jesow maadaama aad adigu tahay dadkii matalayay dadkaasi aragti ahaan ma u aragtaa dhagaxaasi inuu yahay hanti qaran oo dadka ay leeyihiin hanti qaran ma u aragtaana hadda qarankii muxuu ahay wadda dayacay laakiin xoolahaas xoolo deegaankaas laga leeyahay ahaayeen xoolo laga leeyahay dowladda federaalka ay saamigeeda leedahay shuruuc waxaa jirta oo saami qaybsi loo sameeyey dowladdana inay canshuurato way ahayd inay dadkii deegaanka u iibiso oo wixii xaquuq ay ugu leeyihiin ay siisana way ahayd intaba lama sameynine eelaboorka laga dhoofsaday dowladdana haddii hanti qaran haddiis ahayn hantidii qaranka dadkii markaas jooga ayaa dayacay waa tahay xildhibaan Daahir Amiin Jesow wax ma iiga sheegi kartaa dhagaxan ama xog ma ka haydaa ciddii gadatay iyo qaabkii loo gaday iyo lacagihii lagu kala gatay waxaan weydiiyey maadaama aan deegaanka ka soo jeedo waa weydiiyey waxaan lii sheegay in ganacsato deegaanka u dhalatay iyo niman kaloo saamileey ah ay dhagaxa soo gateen muxuu ahaay hadda iig lagu wareejiyey oo ay dhoofiyeen oo ay ka gadeen ganacsatayaal Chinese ah oo weliba xataa ayna gadin oo waa ladii soo gadaa looga qaaday ilaa ay haddana gacanaas ugu jirin saasaan maqlaanay waa tahay xildhibaan dhanka sharciga markaan u guda galno waxa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka sharciga maxuu ka qabaa ilaalinta macdanta ama waxyaabaha muhiimka waa ummadda Soomaaliyeed ma aaminsan tahay in xeerka qeexaya ilaalinta waxyaabaha dabiiciga ee ummadda Soomaaliyeed ama dhaxal ay u leeyihiin ma aaminsan tahayna markii la fiiriyo sida dhagaxaas oo kale hantida qaranka horta hantidoo dhan waxaa iska leh shacabkana waa qaranka hantida qaranka waxaa waajiba in la qabto la xafido ciddii dayacdaana ayadaa dembigeeda haddii waddanka uu sharci ka jari lahaa dad badana lagu soo eedayn lahaa laakiin hadda waddankii mar hadduu sharci ka jarin oo dastuurkii aan la dhowrayn oo shuruucda la dhowrayn nin walba iska qumbaysanayo waxaa waaye waa dayacad badanaa imaan doonta dhagaxaas kaligiisna ma ahaan doona tog ka sii badanaa imaan doonta hadda maalin dhaweeto waxaa la sheegay in heshiiskii amniga ee Turkiga heshiiskiis oo amniga Ethiopia la idinka waardiyeyna badina maraakiib la keenaad oo idin waardiyeynayso waxaa lagu hoos qariyay shidaal waatan leeyahay 5% ayaa shidaalkiina aad leedahay marka meel aan sharcigii shidaalka ku ansixin iyo heshiiskaas oo Turkiga la soo galay meel aan ku ansixin ma jiro waxaan la leeyahay waa la ansixiyay oo markii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay kadib baarlamaanka Turkiga la geeyay la ansixiyay marka dayacad buu ahay waxaa waaye hanti qaran waaye shidaalka waa muxuu ahay dalka hantidiisa uu ka mid yahay marka in maanta si sahal noocaas oo kale uu ku baxo
waxaan aan dhihi karaa dayacaadiyaa weli socoto kuwo kalena waa dayacmi doonaan insha allah. ugu dambeyn waan soo gabagabeynaynaa xildhibaane ka hor intii aanay soo gabagabeynin adiga xildhibaankii ah dadka deegaanka iyo dowladduba diyaar ma u tihiin in aad dadaal ku bixisaan in dhagaxan dib loogu soo celiyo dadkii lahaa gaar ahaan dadka degan Ceel Cali diyaar ma u tahay xildhibaane in la soo celiyo wasaaradan leenahay wasaaradda macdanta iyo shidaalka qaabilsanaan leenahay ayadaa la rabaa inay looyaro qabsato inay hantidaas soo celiso in muxuu ahay sidaas ku baxay si qaldanaa waxaa laga yaabaa xataa inay dowladdii federaalka ee markaas dhisneed ayna gadanin oo ay ganacsatada iska qaata ay dhahday ganacsatadii isdabaduday oo xoolaan soo gelinin dhahay inay iska qaata jira in wuxuu looyaro ay qabsata hantidaas taalooyin la foqsaday ayaa loo soo celiyohaya oo caalamka dagaaladii labaad taalooyin lakala dhacay loo soo celiyohaya marka maasha allah dhagax oo dowladdii ka horeysay 4 sano ka hor la dhacay noo soo celiyo jayna waa la dhihi karaa maalin walba safiirka jayna inta uu yimaada waa tahay safaaradda ama hadda meesha uu yaalo ee jayna ah waxaa la sheegay dhagaxan inuu yahay dhagax laga helay waxyaabo aan abid adduunyada laga helin oo macdanta ku jirta adduunyada markii la baaray meel aan Ceel Cali ahayn oo kale lagama helin ma aaminsan tahay markii in dhagaxan uu yahay dhagaxii ugu qiimaha badnaa ee ka soo baxay deegaankaasi wallaahi anigu ma ihi aqoon joojaalaysta ma ihi qofka dadka baara dhagxaanta ma ihi laakiin xaqiiqda dhabta waxaa waaye in dhagacaas qiimo lahaa mar aan wax ka weydiinin wasaaradda muxuu ahay agaasimiyaalka wasaaradda shidaalka iyo macdanta mar aan weydiiyey wuxuu ugu yiri dhagaxan kiilowgiisa wuxuu joogaa $5.80 waana 15,000 okay oo muxuu ahay kiilo iyo weliba something la sii jira marka 15 tan waa oo 15 tan oo garaamihii uu ka joogo garaamihiisa $5.80 wax sahlan ma 15,000 ku dhufo $5.80 waa lacag badan waa marka anigu ma garan karayo nooca loo sharcigaas qaabka loo soo celin karo dowladda federaalka ayaa la rabaa lawyer inay qabsato inay soo celiso hantidaas xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayuu ahaa oo aan ka wareysanaynay dhacdo ka dhacday 4 sano ka hor dowladdii ka horeysay isla markaana dhagax qadiimiya ama dhaxal ummadda Soomaaliyeed qayb ka ahaa la geeyay dalka dibadiisa